Assalaamu calaykum asxaabteyda soo dhawaada. Maanta waxaa idiin wadaa qiso la yaab leh oo aqli badan uu ku jiro iyo garasho badan oo na dhex martay haweeney iyo nin maskiin ah oo naafo ah. Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Haweeney ayaa soo martay nin maskaxda ka naafo ah oo ul haysta oo dhulka wax ku sawiraya. Qalbigeedii ayaa u naxariistay ninkii oo waxay weydiisay maxaad halkan ka qabanaysaa walaal. Wuxuu ku yiri ninkii naafada ahaa oo dhulka fadhiyay, waxaan sawirayaa jannada oo waxaan u kala qaybiyaa qaybo. Deedna intay dhoola cadeysay ku tiri ma qaadan karaa qayb ka mida, waa imisa? Haweeneydii sidaas ku tiri. Ninkii wuxuu ku jawaabay intuu yaabay uu naagtiisa u fiiriyo eego wuxuu yiri haa, qaybtii waa $20. Qaybtii waxay ku tiri waa $20. Waxay siisay haweeneydii odaygii $20 iyo xoogaa cunto ah, wayna ka tagtay. Habeenkii markay seexatay waxay ku aragtay riyo iyada oo jannada ku jirta. Subaxdii waxay uga sheekaysay riyadii ninkeeda, waxayna uga warantay qisadii dhex martay iyada iyo ninkii naafada ahaa oo miskiinka ahaa oo wadada fadhiyay. Ninkii ayaa kacay oo u tagay ninkii si uu qayb asagana u iibsado. Ninkeedii wuu baxay, ninkii ay u sheegtay oo naafada ahaa oo wadada fadhiyay ayuu u tagay asagana suu jannada u soo iibsado. Ileen xalay uga sheekaysa iyadoo jannada ku dhex jirta inay ku riyootay. Ninkii u tagay waxa sawiraya oo dhulkii fadhiya. Wuxuu ku yiri waxaan doonayaa inaan iibsado qayb ka mid ah jannada, waa imisa? Ninkii wuxuu yiri aniga ma iibiyo janno. Ninkii miskiinka ahaa wuxuu ku jawaabay aniga janno ma iibiyo. Ninkii kale wuu yaabay. Wuxuu ku yiri oo shalay waxaad xaaskayga ka iibisay qayb $20. Ninkii naafada ahaa wuxuu yiri xaaskaagu janno kuma doonaynin $20, laakiin waxay dhareysay oo ay ilaalisay aniga qalbigayga iyadoo ii naxariisanaysa. Yacni naxariisteeday lacagtaas igu siisay oo qalbigayga ilaalinaysay, qof miskiina inaan ahay ii jeeday. Adiguse waxaad doonaysaa janno oo keliya, jannadu ma laha qiimo go'an. Waxaa sidaas yiri ninkii naafada ahaa oo miskiinka ahaa. Sababtoo ah buu yiri soo galitaankeedu waxaa lagu helaa kabida iyo ilaalinta qalbiyada. Yacni qalbiga dadka inaan u qaboojiso oo kabida yacni wuxuu ka wadaa waxtarka inaan wax ku tartid dadka qalbiyadoodana u ilaalisid. Kaba oo dhara qalbiyada dadka kale. Ninkii naafada ahaa saas ugu sheekeeyay ninkii qof walba oo qalbiyada fikradaha dadka kala ilaaliya ixtiraama. Qalbiyada dadka qofka kale oo ixtiraamo ilaaliya oo dadka u naxariista Ilaahay ayaa wuxuu ku dhex badbaadiyaa qatar kasta oo ku xeeran. Ninkii isagoo ilmeyn gartayna inaynan wax siintu ahayn muhiim, laakiin ixtiraamka iyo dhowrista qalbiyada dadka tahay guusha ayuu isaga tagay oo gurigiisii u haleelay. Marka taas waxay cadeynaysaa asxaabteyda in ay kaliya inaa qofka wax siisid kaliya ay fiicneen, oo haddaadan awoodin wax siinta xataa qofka hadal macaan qancisid, si fiican ugu jawaabtid. Sadaqada qayb ka mid ah waay taas laftirkeeda. Wax siinta kaliya sadaqa ma aha. Qofka qalbiga aa u dhistid, niyadda u qaboojisid, hadal macaan kula hadashid, waa sadaqa iyaduna taas. Marka asxaabteyda ninkii aad u la yaabay, aad u qancay. Marka hore wuxuu isiri jannada waa iibsan kartaa adna soo iibso. Laakiin wuxuu ogaaday in ay waxaas oo dhan ay macnaheedu ay ahayd in qalbiyada dadka la hagaajiyo, loo naxariisto, ay ka wanaagsan tahay wax siinta. Wax siintana waa muhiim, laakiin markii lagaa helo hadal macaan, qalbi wanaagsan. Sheekadu intaasay ku eg tahay asxaabteyda. Waa qiso la yaab leh oo ku cimri qaadasho leh. Asxaabteyda khayr idiin dhaafay. Sheekadeennii intaasay noogu eg tahay. Insha Allah inaa ka faa'iideen waan filayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.